السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا قيمة هي قاية بدن ومسكين كذا قبرتين برامج شتير من بالدنيا على ذا كجوكتين سدوا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا قيمة هي قاية بدن ومسكين كذا قبرتين برامج شتير من بالدنيا على ذا كجوكتين سدوا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي وقدم بيجي إذا ما حوق الدرك الصومالية وديجان هور لقبصدي بلد حاوة ودجال هور لا عبسي قبو cabdirashiid janan oo soo noqday warbixinayaan kaga haya fiidiyowga sheergayn lil wadaaga asxaabtiina meel walba ay joogtay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalkay macaani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha badan waa maskiinkaad uga barateen barnaamijyo tayo leh meel walba dunida dacalada ay ka joogteen. soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo deegaano hor la qabsaday iyo dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo Banyooley ee gobolka Gado. wararkii ugu dambeeyay ayaa in la wadaagayaa caawa waxay soo wacay dad Mandheero jooga warbixin ayay siiyeen. intaasba waxaan rabaa inaan ciidanka iyo saraakiisha balad xawo iyo dowladda Soomaaliya aan gaarsiiyo war xaqiiqa oo laga soo sheegay Mandheera ayaa in la wadaagayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. soo dhawaada fiidiyoogana sheer garee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من والباقي جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دي عصبتها يوتيوب كسبسكرايب صار جنبالك فروليك صار بليز. هذا انت نوع عصبتها هيا لبرنامج كا ولكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا انت نوع عصبتها يوتيوب كبوغو سبسكرايب صار جنبالك فروليك صار برنامج كدان قلنا هو وقت مهن اليوتيوب انا رسار دتكو ان داوني وانا تجين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما انت وعلى الله مل والباقي جوكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. fiidiyowga sheer garee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo deegaano hor la qabsaday deegaanadaas magacyadooda qaabka dagaalka u dhacay 13 al-shabaab oo la dilay iyo 15 kale oo nolosha lagu qabtay iyo Dinsoor iyo kan sidoo kale waxaan la wadaagayaa degmada Dinsoor oo iyadana 6 qofood oo al-shabaab lagu dilay kadib markii ciidamada dawladda halkaas howlgal ka shafiyeen hubkii laga qabtay iyo meedkoodii ayaa in la wadaagayaa inta in ka tusi doona hadduu Ilaahay yiraahdo. فيديو شير قري لو ذاك أصحابتنا من والباقي جوكتين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان واقولستين دولتين واقولستين إلا هذا الدولة دي ورا إلا هذا الدولة دي أدفانتيد إلا هذا ويكون جامين سالح يبرقول دولة كو جامين سا إلا هذا الشباب واسكسو جود لاين قيبت دم عيارتها لمريا واسيق بجو وبرورك يريس تضواتني جن دقيقة أي مرسا عيارتنا واتقنا شن يتمن دقيقة بعد ولا سوق بجمينية دقيقة هرلا على غبصة oo gobolka Hiiraan ayaa hadana la isla tagay shabeellada waa la iskala baxay jubada dhex waa lagu sii socdaa 13 al-shabaab oo meeyda iyo hubkoodii iyo 15 kale oo nolosha lagu qabtay. dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada koonfur galbeed ciidamada Hirshabeelle Beledweyne oo garab kaliya ciidamada danab oo diyaaradaha ku dagaalamay ayaa waxay ku qabsadeen deegaanada ay la wadaagi doonaan magacyadooda. fiidiyowga sheer garee la wadaaga asxaabtiina waxayna hoos tagaan tuulooyinkaas la wareegay Buula Burde iyo Jallaqsi sida sargaal ka tirsan ciidanka dawladda oo halkaas ku sugan uu la soo wareegay magacyada deegaanadaasi Buula Burde iyo Jallaqsi hoos taga ee gobolka Hiiraan ayaa in la wadaagayaa. soo dhawaada fiidiyowgana sheer garee la wadaaga asxaabtiina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mataqaana hore u socda waa naga farxiyeen maalin walba markaan soo dhaco saraakiil la soo xariiraan dad la soo xariiraan والله وفرحة الوركي سيفا ودقيس لح هبكي لغا فرتي ميد كودينا لصوب بندقة او يكون ميد انتي لصوق هذي لكيناي دينصور ايضا وين لو داقيا مقال كودي لكن وحان رواينا اني شاقو بولا برد اي جلغسي ايضا كدولة دا او قرب كي ايضا ماذا هيرشابيل او قرب كيليا ايضا كدنب ايا قعنتا كوديغي وحانا اسي السعودان بولا برد اي جلغسي nimankan waa u dhamaatay meel dambe ay ku gambadaan ma jirto tan way Israa'iil gobolka Hiiraan waa laga ciribtiraya gobolka Hiiraan oo dhan waa laga ciribtiraya wallahi shaqadu waa socota meel walba isaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Hirshabeelle ay soo weeraraan dan waa kor uga iimaanaysa. marka waxaan rabaa inaan deegaanadaasi in la wadaago fiidiyowga sheer garee la wadaaga asxaabtina deegaanadaas waxaa kamid ah afcadde ilaa ninka ay yaqaaniin dadka waxaan leeyahay Hirshabeelle degan gudoomiyaha وعوي هيرشبيل waa ka tirsanay dadku way la yaabeen gudoomiye adiga ma waxa tahay gobolka Gado Hirshabeelle tahay
ma koonfur galbeedaa tahay ma jubbalandaa tahay ma puntlandaa tahay dadku way ugu wareersan yihiin marka waxaan rabaa inaa ilaado adeer waxaan waxa waaye dad soomaaliyeed waay waa dadkeen waa deegaanadeeni marka barashay u baahan tahay deegaanada ay ciidamada xoogga la wareegeen waxay kala yihiin afcadde eelbacaad iyo abuurey oo kala hoostaga degmooyinka buulo burde iyo jallaqsi waa afcadde eelbacaad iyo abuurey oo hoostaga waa abuurey qofkii yaqaana waa abuurey ceelcadde iyo ceelcadde iyo afcadde ceelbacaad iyo abuurey intaba waxay hoos tagtaa uu yidhi buulo burde iyo jallaqsi waxaana hadda ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo danab halkaas oo 15 nolosha lagu qabtana diyaarada lagu qaaday 13 meedana godaa la iskaga daadiyey hubkoodii iyo waxoodiina waa laga furtay adeer ciidamada dowladdu waa guulaysteen waana qaybta 41aad waxa howlgalladaas fuliyey waa dhamme cabdulaahi cali nuur waa taliyaha ciidanka ururka 21aad ee guutadooda shanaad oo warbaahinta u caddeeyuu yidhi in al-shabaab ay ku jabiyeen dagaalkaasi 13 ka dileen 15 nolosha u qabteen hubkoodiina ay gacanta ku hayaan dowladda sidoo kale iyadana diinsoor oo iyadana aan la wadaagi doono aan sawirada diinsoor tusee waxay ii dulqaata ilan sawiradu waa badan yihiin waxaan rabaa inaa ilaado beled xaawana waxaan rabaa in ciidamada dowladdu ay feejignaan dheeriya sameeyaan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay macaana soo dhowow meel walba aad joogteen waxaan leeyahay assalaamu calaykum soo dhowaada waxay ii dulqaata waa inaan dadka tuso sawiradaas hadduu ilaah yiraahdo waxyar ii dulqaata waxyar qofka ii soo diray magaciisaan raadinayaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan tusayaa meydkoodii oo diinsoor lagu soo bandhigay waana lin iyakii hubkoodii waa kaas qofkii raba guddoomiyaha inuu hadhow yira guddoomiye beenaa sheegaysaa oo kuwaas dadku ay daawanayaan meydkoodii hubkoodiina waa kuwaan markaa hoosu dhigo hubkii laga furtay waa kuwaas bal warkayga si faa u dhegeyso oo kuwaas dadka waa inii soo dhaweynayaan dadka qaaraa ka fogey meydkoodii dadka daawanayaan marka nimankaasi waa jabeen nimankii mucaaradka waxba maynii harin awalba nimankaasi ku gamba jirteen nimankii waa jabeen 6 goola lagu leeyahay 80 minutes hadda maray markaan leefka soo galay ciyaarta markaan aniga hadda soo galay 75 minutes maray waxa 10 minutes dhiman ciyaarta dhanba lagu kala baxay waa inta bu'aale laga tagay bes bu'aale inta laga tagay bes 10 daqiiqo bu'aale lagu tagay hadduu ilaahay bal warkayga riiso meel ka soo kabsadaan male al-shabaab sidaan soo bandhigi jiray al-shabaab intay askarta meedkooda soo qabtaan ay dadka dhex keeni jireen hadda waa ku anday iyaka lagu raaxaysanaya allahu akbar day allahu akbar waa maasan tahay walaalkay iga soo diray diinsoor waa kaaga mahad celinayaa allah ku sharfo anigana waa igu ogtahay inaan bulshada usoo bandhigayo argixisada ugus ee jabay ee baaba'ay waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waa guulaysateen danleyna waa u dhammaatay al-shabaab waa jabeen al-shabaab hadday jabaanna nimankan waa tegaya sheekh shariif iyo xanshiikh iyo abdiraxmaan cabdishakuur waxaan leeyahay waa tegeen waxaan rabaa marka in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka gada jooga inay feejignaan dheeriya sameeyaan waxaa la ii sheegay wararkii ugu dambeeyey mandheer iga soo gaaray waxay sheegayaan in cabdirashiid janan uu ku soo noqday banyooley haddadaan kula hadlaya cabdirashiid janan caawa wuxuu joogaa xeradii banyooley cabdirashiid janan waxaa la soo siiyey 100 qoryaha yaryarka iyo 50 dabajeexyaha oo dowladda kenya ay soo siiday ilaa adiga meesha deegaanka wuxuu ka hayaa sida wararka aan ku helayo ama dadka deegaanka iisoo sheegeen 150 dhalinyaraha oo laga soo aruuriyey xuduudka u dhexeeya kismaayo iyo kenya bal warkayga si fiican dhegeyso waxaa la rabaa dadku inay wax ogaadaan ciidamo waa ka waayeen dhoble inay ka soo wadaan warkayga dhegeyso ciidamadan waa la qoray baryahan dhanaa laga qoraya xuduudka kismaayo iyo u dhexeeya kenya ayaa laga qorayay ciidamada halkaasaa laga soo qaaday cabdirashiid janan baryahan wuxuu ku sugnaa nairobi waxaa la siiyey oo wallaahi inaan beenii sheegin wallahi aniga warkaa inii sheegay waa xaqiiqo waxaa la soo siiyey 3 bilood oo mishaar joogto ah isaga iyo ciidanka ka dagaalamay dagaalka halkaas raba inay ka qaadaan oo raba inay weeraan beled xaawo
oo xuduudka ciidanka jooga ay weerar ku soo qaadaan waxaa la ii sheegay 100 qoryaha AK47 ah iyo 50 dabajeexyaa in la soo siiyey maleeshiya 150 ku dhowna ay hadda balyooley ay ku sugayiin oo cabdirashiid janan hogaaminayo waxay shalay yimaadeen la yiri meesha xuduudka halkaas dolotus iyo ka sameynayso qor dabajeexriday waa aragteen oo maleena baraha bulshada marka waxaan rabaa inaan fiidoogaas gaarsiidin ciidanka beled xawo jooga xooga dalka Soomaaliyeed inay feejignaan dheeriya sameeyaan cabdirashiid waa soo noqday haddana kula hadlay caaw wuxuu ku jiraa xirada banyooley waxaana ila soo wadaaga xogtaasi qof deegaanka jooga oo Soomaaliya ayaa xogtaasi siiyey wuxuuna yiri ninkan diyaarada keentay Nairobi laga keenay 3 bilood mushaarkooda ayaa ciidanka iyo isaga gacanta loo soo galiyay bal warkayga si fiican u dhigis 3 bilood mushaarkooda Kenya adiga doqomo ma Kenya ka aqli badan tahay sababtoo ma lagu siin karo 6 bilood iyo sanad iyo ma lagu siin karo sababtoo inay is dhiibis ka cabsoonayaan sidii maalin ciidamada banyooley iska soo dhiib markay dhis ciidamadaana waa ciidamada is dhiibay ma dagaalamayaan dagaalka lagu qasbiyaa ma niman dagaalami kara ma bal warkayga dhis niman tababaran ma waa niman reebaadiyaal wax laga soo aruuriyay xuduudku u dhaxayaan ku dhaakismaayo iyo Kenya barta u dhaxays ayaa laga soo aruuriyay oo Jubbooyin ayaa laga keenay bal warkayga si fiican dhigis niman dagaalami kara tababar leh samada reebaadiyaal xabad ma ridi karaan laakiin ujeedka laga rabo waxay tahay in halkaas qallaaso iyo foodo ay Kenya ka samayso waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed ay daawanaysa ma tan kala qaas ma tan qaas uma baahna baraada wixii qaasa waa la qarinaya markuu ninka soo socdo ama dadka markay ciidanka ani ciidan banyooley joogo markay ila soo xiriiraan live kama sheegayo oo dhahan gudoomiye ama dad deegaanka ay ila soo xiriiraan yiraahdaan ciidankaasi banyooley ku soo gudoomiye wada Imraan ay raaysta markaas macluumaad telefonkiisa waa haystaa marka rutiin sheego telefonkiisa intii ugu jira macluumaad ee sheeg maxaa la yiraahdaa afayeenka gobolka Gedana waana qaana Aljubbo iyo kan markaas kala hadlaa tan oo kale maaha tan oo kale qof walba oo Soomaaliya iyo dibad iyo dalba jooga ay u baahan yihiin waa daafac dalka aday ka saareen dawladda inay feejignaadaan ciidankana ay feejignaadaan dadkeena waxa way markii wax la sheego ka bacdi fiiriyaan adeer waa in subax walba heegan joogta la galo ninkaasi waxa ciidamada Kenyaati ayaa waxay u ballan qaadeen inay duqeymo doonaan ciidamadeena meesha ay joogaan iyo deegaanka beled xawo madaafiic lagu garaaci doono iyo kana ay galaan deegaanka warkayga dhis xogtaasi dada ii sheegay wax la qariyana ma sababtoo cid walbana waa ogta dadka Mandheera degan waa ogyiin dadka Nairobi degan waa ogyiin ciidanka hadda banyooley ku xareysanay Soomaaliya ee la qalday ee la yiri kaale dagaalan waxaana la sheegay in ciidamadaas loo keenay ama laga soo aruuriyay deegaankaas in al-shabaab ay la dagaalami doonaan dawladda Kenya ay caawin doonto diyaarado waxa soo qaaday ee Kenya leeyihiin oo military soo qaaday bal warkayga si fiican dhigis waxa looga sheekay in al-shabaab la dagaalami doonaan markuu banyooley yimaado oo la sheego meesha uu joogo ciidankana uu war helo ma dagaalamayo waana ka soo tagaya bal warkayga dhigis laakiin waxa loo keenay al-shabaab la dagaalamaan oo al-shabaab deegaanadaas ka xoreeyaan deegaanadii loogu sheekeeyay inay ka dagaalamaanna ma la keenin waa la soo qaaday banyooley la keenay halkaasi caaw ku aruursiin bari subax ama bari damana sida wararka aan ku hayay inay weerar soo qaadaan oo Kenya ay dabada ka riixaso waxaana la sheegay in 3 bilood mushaarkooda la baxshay oo xidig la siiyay 3 bilood mushaarkiisa soo qaatay waxa loo isticmaalaya dalkoodii nin Soomaaliya kuwa hadda kuraasta raadinayna kore kala socdaan way ogyiin oo madaxweynaha orday bal warkayga si fiican dhigis bal warkayga dhigis adeer daafac ma ahay wala weerariya weerar looga gartagaya wala weerariya waxa la yiri isqofay shantaada ka cilina kaama celiso daafac lama galayo ma aniga saraakiishan waa wacaya markaan leef ka baxo oo macluumaad wala hadlay fadhiga adeer laga kaco oo meesha weerar la aad heshiiskii Kenya way ka baxday in labada xuduud la ilaaliyo Kenya iyada ka baxday iyada Cabdirashiid xiddi ku soo celisay Cabdirashiid xillig wuxuu joogaa hadda banyooley halkaas abaabul ka wada abaabulka ma wuxuu ku leeyahay marka intuu soo istaago maanta ku soo weeray ma ku dhahay waxa caawa habeenimo saq dhaxayna weerar soo qaadaan oo dan laayaan ciidan marka waa in laga hortagaa oo ciidanka dawladda fiidooga sheergaray adeer fiidooga sheergaray please qof walba inuu fiidooga sheergaray dad fiidooga